بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waaye guud ahaan bulshooyinka gobolka Gabiley ee maanta halkan isugu timi madashan sharafta badan ee quruxda badan ee aadka u qiimaha badan waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka ugu horeyn maamulka gobolka oo ugu horeeyo maayirka degmada Gabiley maareeyayaasha wakaaladaha biyaha Arabsiya iyo Gabiley xildhibaan Cabdiraxmaan Nuur gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley odayaasha sharafta leh ee qiimaha badan ee gobolkeena iyaguna xilalka duwan iyo kala duwan iyo kaalmaha kala duwan ugu jira gobolka ee uu ka mid yahay ugaaska chief caaqilada uqaasha guud ahaan odayaasha gobolka ee iyaguna halkan fadhiya ee kala duwan haweenka qiimaha badan ee aadka u sharafta badan halkan iyaguna u yimid maanta soo dhaweynteeda oo ay ka mid yihiin haweenka xisbiga ee gobolka Gabiley haweenweynaha kala duwan ee kale ee gobolka hablaha dhalinyarada ah inamada dhalinyarada ah si gaara waxaan u salaamayaa iyagana ardaydeedii jaamacadda gaar ahaan fakalka lowga ee jaamacadda Timcadde ee gobolka Gabiley oo iyaguna halkan fadhiya waxaanan iloobi karayn iyaguna inamada saxaafadda guud ahaan halkan iyaguna u taagan maanta soo dhaweynteeda iyo maxay tahay xafladan ama kulankan aan idhaahdee sharafta badan ee qiimaha badan waxa kale oo aan mahadnaq gaara iyo salaan siinaya mulkiilaha hoteelka Axmed Maxamed Qalinle waxaan filayaa inuu inaga maqan yahay oo isaga laftiisu dhinaca abaabulka kaga jiray guud ahaan waxaan idinka mahadnaqayaa dhammaantiin iyada oo maanta maalin jimco ah oo maalin cibaado ah oo maalin nasasho ah in aad haddana qiimaha agtiina aan ku leeyahay darteed aad halkan isugu soo baxdaan oo aad ii timaadaan hawlihii iyo mas'uuliyaadkii kala duwanaa iyo shaqooyinkii aad hayseen dhammaan aad faraha ka soo qaadaan halkaa aad iigu timaadaan oo aad igu soo dhaweysaan aad iyo aad baan dhammaantiin idinkaga mahad celinayaa mas'uuliyiinta dowladda oo iyagu shaqo aad u fara badan haya oo dabcan qofka xil qaran haya baa dareemi kara culayska xilka qaranku uu leeyahay iyaga oo mas'uuliyadoodu culus tahay oo shaqo aad u adag haya maalintan nasashada ay ku jireen inay maanta haddana halkan iigu yimaadaan aad baan uga mahad celinayaa odayaasha dhaqanka ama odayaasheena oo iyaga laftigoodu hawl aad iyo aad u culus haya oo hawlaheena marka ay dhibaato dhacdo ama khilaaf dhaco ama ay cidi isdisho maalin walba heegan u ah iyo habeen iyo maalinba heegan u ah in ay xaliyaan arrimaheena maalintii kaliya ahayd ay nasan lahaayeen iyaguna halkan iigu yimid oo igu sharfay oo igu qiimeeyay igu soo dhaweeyay dhammaan dhalinyarada iyo ardayda jaamacadda iyo odayaasha kala duwan ee halkan fadhiyaguna fadhiya sidoo kale waxaan si gaara mahadnaq gaara u siinayaa haweenka halkan fadhiya haweenweynaha Gabiley hablo iyo hooyooyinba runtii haweenku hawl gaara oo aad iyo aad u culus bay guryaha u hayaan mas'uuliyad culus bay hayaan waa dawladihii hoose ee guryaheena iyo qoysaskeena iyaga oo hawsha u taalay maanta ay tahay hawl aad iyo aad u culus oo ay maalin jimcaha tahay caruurihii iskuuladii fasax ka yihiin hawlihii guryuhu u yaalaan haddana waqtigoodii qaaliga ahaa ii soo huray inay halkan iigu yimaadaan oo ay igu soo dhaweeyaan oo ay igu qiimeeyaan oo igu sharfaan iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa si gaara dhammaantiin waxaan idin leeyahay ilaahay ha idin sharfo oo ilaahay ha idin karaameeyo sida aad ii karaamayseen ee aad ii qiimayseen ee aad iigu sharafteen maanta gobolkaygii iyo magaaladaydii Gabiley inaad igu soo dhaweysaan ilaahay ha idin karaameeyo oo ha idin muuneeyo baan idin leeyahay dhammaantiin waxa weeyaan waa abaal aan idin hayo waa wanaag aan idin hayo qalbigan runtii idinka jecelahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa kolley maaha markii ugu horeysay reer Gabiley aniga ay soo dhaweeyaan
سنة كي لبدي يكون يسديد يطبنكي أنا جو مشرح الدبان قلها وكيل لذا أيام قبل إيمن هوتيل كان أي نمان تشوجنو تاج بلاس لفتيسة أي حفلة وين وآدي أيضا بلارن أي رجع قبل يجو قبتين ويجو صور دويين يجون إيه كلا هرين عقال علماء قضيال دلنيرو هبلو هويوين guudahaan bulshada gabiley ee kala duwan sidaas ka wanaagsan ayay runtii barigaana ii soo dhaweeyeen marka waa maalintii labaad ama waa markii labaad ee si gaar ah ay ii soo dhaweyso bulshada gobolka gabiley waxaan idin leeyahay mar labaad waan idin mahadnaqayaa siyaasi anigu ma yihi runtii waxaan ahay dabcan shaqaalaan ahay وأجاسمها جود مركز يكتو إن حركة كلا حذين إن معمول كحكومة وشقالة معها إن حب سياسية إن أنا جو طبعا إن حل قرن هيا أجاسمها جود إن كان صوت شيء قبل كيجي رنتي واحد شاء الله يستي إن أنا ما أنت الله كل ما بالشوين تكلا دون قبل كيجا رجع هوايبا على شيء كيستو أنو يسحب ورئيسنا إسحال ورئيسنا سفي عنو شاكيسانو يعني طبعا ujeedada aanu imid waxay ahayd booqasho iyo bariido iyo salaan maanta aan idin la imid taas oo runtii ilaa maalintii xilka la ii magacaabay aan maalinna qalbigayga ka bixin ma habeen iyo maalin baniyada iyo qalbiga waan idinku hayay balse waxa iga kiin mashquuliyay xilka qaranka ee aan hayo oo runtii xil aad iyo aad u culus ah waad garan karaysaan mas'uuliyadda qaranka aan u hayo ومد آدي هذا بلارن جودهان ذلك الجمهورية الصومالية نوردن أيانو أهاي أجاسمها جودة بيه إن أردمان سلا إيسو إيجايا أو بيجا سجايا وذكتهم باهيها بيه ذلك الجمهورية الصومالية إن يهيم هو آدي هذا فربضن أو أنا أردن كرينين ما أنت قبل كلية أو صومالية كم ذا أي بيه لجاه قبتري أو بيه كدرجي مي أيام مجالة بيه وإنه بهالنهاي hargeysa oo caasimadii baan biyihii lagaga dhargin oo kala badh ama inta ugu badan aan iraade booyada loo shubaa oo booyaduhu ay u dhaamiyaan oo ka caba dabcan baahida inta leeg iyo mas'uuliyadda inta leeg ayaa markaa iga kiin mashquulisay mar walba qalbiga waan ku hayaa gobolkayga in aanu imaado oo aan la sheekaysto oo aan kulamo gaara iyo kulamo gudba la yeesho aad iyo aad baan u jecelahay sababtoo ah wax weeyaan waa cidii aan matalayay عدة أن متليي وايدينك قبل كي جبلي ما دام أنا ذي متليو واجب يقول هاي إن الحال كينا يرميهن يحكتينا يباهيهن يوحك استوتشرة سجارة إن نوجادو أنا قصدي أن هرب صار شيء مسؤول قرنه أو قرن كوردن كمسؤولة حقنا عبيها هذا السجارة واجبات gaara gobolkayga iga saaran in aan ogaado xaaladiisa iyo waxa jira iyo sida wax u socdaan iyo waliba baahiyaha gaarka ah ee uu leeyahay inta taagtayda ana ama awoodayda ana inaan ka jawaabo mar walba diyaar baan u ahay anigoo mar walba u dadaalaya guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay wasaaradda biyuhu uga qabtiri lahayd biyo haddana mar walba waajibaad gaara ayaa dabcan iga kiin saaran oo gobolkaygana iga saaran inaan ku soo noqdo oo aan ka warhayo marka maanta runtii ujeedada maxay tahay kulankani waxa uu daarnaa in aan idin imaado idinku soo noqdo idin salaamo isxaal ogaano waan jeclaa in waqtigan intan ka badan aynu haysano